kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal Nacfi Media ayaad nagala socotaan subscribe noo saara channelkan la garay ee muuqaalka maanta waxaan ku qaada dhigi doonaa oo aan ku jeexjeexi doonaa qodob ku saabsan ahmiyadda biyaha iyo waqtiga ay tahay in biyaha la cabo ilaa 8 waqti oo muhiim ay tahay in biyaha la cabo iyo haddii biyo xad dhaaf ah jirkeena ay gaaraan dhibaatada ka dhalan karta faa'iidooyinka dhinaca maqaarka bilicda iyo wajiga ay u leeyihiin biyo cabista ayaan ku eegi doonaa biyuhu waa hibar rabbaani oo noloshu ay ku tiirsan tahay qof walba uu ogyahay in biyo la'aan nolol ay jirin balse dad badan si dhab ah uma fahansana sida ay biyuhu muhiim ugu yihiin caafimaadka jirkeena maskaxdeena iyo xitaa bilicda muuqaalkeena qiyaastii 80 ilaa 70 jirka bini'aadamka waxa uu ka kooban yahay biyo taasi oo muujinaysa in biyuhu ay yihiin laf dhabarta dhammaan howlaha jirka warbixintan waxaan ku eegi doonaa dhinacyo badan biyaha caafimaadka dheefshiidka biyaha iyo caafimaadka kelyaha sida ay faa'iido ugu yihiin iyo maqaarka sidoo kale dhanka maskaxda iyo doorarka kale ee muhiimka ah ee nolosha ay ka ciyaaraan biyuhu waxay kaalin weyn ka qayb qaataan burburinta iyo nuugista cuntada marka aan wax cunno calooshu waxay u baahan tahay biyo si ay u soo saarto dheecaano loo yaqaano enzymes waxay caawiyaan shiiditaanka cuntada waxay fududeeyaan dhaqdhaqaaqa xidmaha intestinal motility waxa loo yaqaanay taasi oo yareysa khatarta calool fadhiga ama constipationka dadka oo saxarada ay ku dhigto dadka caba biyo yar inta badan waxay la kulmaan calool fadhiyo gaas badan iyo dheefshiid xumo waxa kaloo la ogaaday in biyuhu ay ku filan yihiin yareynta khatarada cudurrada ku dhaca mindhicirada iyo caloosha sida gastritis iyo reflux sidoo kale kelyuhu waa mushiinka sifeynta jirka waxay shaqadoodu tahay inay ka saaraan sunta iyo wasakhda dhiigga ku jirta marka biyo la cabo kelyuhu waxa ay u fududaataa inay si sahlan u shaqeeyaan sidoo kalena ay u shaandheeyaan dhiigga isla markaana ay ka hortagaan dhagaxaanta kelyaha ku samaysma biyo yaraantu waxay kordhisaa infekshanada kaadi mareenka urinary tract infection UTI sidoo kale waxa ay sidoo kale sare u qaadaan halista cudurrada kelyaha muddada dheer cilmi baarisyo badan ayaa muujinaya in dadka caba biyo ku filan ay ka caafimaad badan yihiin dhanka kelyaha marka loo eego dadka biyo yar isticmaala dhinaca maqaarka haddii aan u galnana maqaarku waa muraayadda caafimaadka jirka marka jirka uu helo biyo ku filan maqaarku wuxuu yeeshaa qoyaan dabiici dhaldhalaal iyo sidoo kale waxa uu sare u kacaa dhinaca maqaarka xoojinta maqaarka iyo sidoo kale bilic soo celinta maqaarka biyuhu waxay ka hortagaan qalaylka finanka iyo sidoo kale in maqaarka uu gubto ama wajiga sidoo kale waxyaalo ay soo gaadho biyo yaraantu waxay keentaa maqaarka oo qalala qofka oo da' weyn ay ka muuqato sidoo kale haaraha wajiga ayaa ka mid ah waxyaabaha ay keenaan qurux badan iyo sidoo kale maqaar caafimaad qabo intaba ma helayo qofka aan helin biyo ku filan siba dhanka cabista sidoo kale maskaxda bini'aadamka ku dhowaad 75% waa biyo cilmi baarisyo ayaa muujiyay in biyo yaraantu ay si toos u saameyso xasuusta fikirka iyo feejignaanta dadka biyo badan caba waxay yeeshaan maskax firfircooni niyad wanaagsan iyo hurdo wanaagsan waxa kaloo la ogaaday in biyo yaraantu ay keento madax xanuun werwer iyo sidoo kale qofka inuu dareemo diiqad waxa loo yaqaano habdhiska difaaca jirkana biyuhu waxay ka caawiyaan jirka inuu sinta iyo wasakhda ka saaro dhiigga waxay fududeeyaan wareegga dhiigga taasi oo difaacda jirka isla markaana ka dhigta mid sare u kacsan marka jirka uu helo biyo ku filan wuxuu si fiican ula dagaalamaa caabuqa iyo fayrasyada biyaha iyo ka hortagidda cudurrada dhinaca kansarka mindhicirka dadka caba biyo ku filan waxaa ka yaraata halista kansarka sida la xaqiijiyey ee ku dhaca mindhicirka ee colon kansarka sidoo kale dhagaxaanta kelyaha biyuhu waxa ay kala diraan cusbada iyo macdanta xad-dhaafka taasi oo ka hortagta inay isu bedelaan dhagaxaan infekshanada kaadiheysta biyo badan waxay nadiifiyaan kaadiheysta taasi oo yareysa infekshanka soo noqnoqda ee xalka loo waayey cudurrada wadnaha biyaha waxay caawiyaan wareegga dhiigga taasi oo yareysa cadaadiska dhiigga iyo khatarta wadna xanuunka haddaba inta biyo ay jirku u baahan yahay waxaa lagu talagalay celcelis ahaan 8 ilaa 10 galaas oo biyo maalintii dadka ku nool cimilo kulul ama sameeya shaqooyinka culculus waxay u baahan karaan biyo intaas ka badan waxay ku xiran tahay qofka iyo almeetada ama shaqada qofka uu gacanta ku qabto maalinkii calaamadaha markaasi sameeya inaad biyo badan u baahan tahay waxaa ka mid ah in kaadidaadu ay madowdahay afka in qalal uu ka dareento madax xanuun iyo sidoo kale daal joogta maqaarka oo qalala afka uu ku qalala gaar ahaan bishimaha talooyinka ku saabsan dhanka biyo cabista ku bilow subax kasta koob biyo si jirkaaga loo kiciyo ha sugin inaad haraad dareento biyo badan cab
ku dar liin qajaar ama caleen basal si biyahaagu ay u noqdaan macaan oo markaasi dhadhan fiican leh. qaado dhala biyo oo aad la socoto maalintii si aad u xasuusato dadka gaar ahaan aan biyuhu xasuusanin. waqtiyada ugu fiican marka aad soo toosto subaxdii cabista biyaha koob biyo markiiba kadib markaa hurdada kasoo kacdo waxa uu ka caawiyaa jirka inuu kiciyo shaqooyinka gudaha gaar ahaan kelyaha iyo mindhicirka. waxaa kaloo uu caawiyaa sifaynta sunta habeenkii jirka ku jirta ama ku aruurta 30 daqiiqo ka hor cuntada. iyaduna waxay ka mid tahay waxyaabaha khabiirada caafimaadka ay ku talinayaan in la cabo nus saaca ka hor cuntada. dhanka dheefshiidka ay u wanaagsan tahay waxay u diyaariyaan balliya caloosha in qofka saxarada ay si wanaagsan uga imaato. 1 ilaa 2 saac kadib cuntada cabitaanka biyo wanaagsan kadib cunadu dheefshiidka waxa uu bilowdaa oo uu caawiyaa in uu shaqeeyo. dhinaca kale waxa uu burburiyaa cuntooyinka culculus, sidoo kale waxa uu fududeeyaa dhinaca nafaqada in uu si wanaagsan u kala sifeeyo u kala shaandheeyo. xilliga jimicsiga iyo kadib jimicsiga intaba biyuhu waa in la cabaa si jirku u helo dheecaano ku filan. kadib jimicsiga biyo badan cab si loo soo celiyo dareeraha jirka ka baxay dhanka dhididka. marka aad daalan tahay ama madax xanuun dareento sidoo kale biyo cab. waqtiyada laga yareeyo cabitaanka biyaha waa isla markiiba ka hor inta aadan hurdin. biyo badan ha cabin oo waxaa dhici karta in caawo dhan calooshaadu ay kaadida markaasi ay bilaabato inay kugu shaqayso oo hurdada ay markaasi hurdo seeg ay kugu ridto. biyo badan oo la cabo inta lagu guda jiro cuntadu waxay daciifiyaan dheecaanada caloosha stomach acidka oo muhiim u ah shiididda cuntada. waxaa fiican in biyo yar la cabo inta markaasi lagu jiro cunnada oo aan la iska badin. hurdada badan habeenkii sidoo kale iyaduna in aan la cabin ayaa lagula talinayaa. marka calooshu aad u buuxdo waxay sababi kartaa calool barar iyo qofka inuu dareemo dhibaatooyin kala duwan. haddaba muuqaalka intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa. halista cabitaanka biyo xad dhaaf ah overhydration ayaa loo yaqaana. inkastoo biyo badan caafimaad ay qabaan haddana cabitaanka aad u badan ayaa sidoo kale keeni karta dhibaato. sidoo kale waxyaabaha ka dhalan kara waxaa ka mid ah in sonkorta dhiigga in ay isku dhex milanto oo ay yaraato, taasi oo keeni karta isku dar aan dheelitirneyn, wareer, madax xanuun iyo daal xad dhaaf ayaa laga qaadaa. barar maskaxda iyo murqaha haddii xaaladdu ay aad u xumaato sare ayay usii kicinayaan. xaaladaha daran waxay sababi karaan suuxdin iyo khatar nafeed. qiyaastii caafimaadka waxaa lagula talinaya waa 8 ilaa 10 galaas maalinkii, 2 ilaa 2.5 litir, balse waxay ku xirnaan kartaa cimilada, shaqada jirka iyo xaaladda caafimaad ee qofka. calaamadaha cabitaan biyo xad dhaaf ah muujinaya waxaa ka mid ah kaadi aad u badan, gacmaha iyo lugaha oo barara iyo dareen caajis ama wareer joogto ah. haddaba cabitaanka biyo waa muhiim, balse xilli sax iyo qiyaas sax ayaa ka dhigaysa faa'iido aad u badan mid ku keenta. subaxdii ka hor cuntada iyo ka hor jimicsiga waqtiyada ugu fiican. habeenkii hurdada ka hor iyo inta aadan cunto culus cunin waa waqtiyada ugu fiican. cabitaanka xad dhaafka waa khatar caafimaad oo aan la iska indhatiri karin. intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkeena. fadlan subscribe noo saar, like garee, la wadaag asxaabtaada, channelkana la wadaag asxaab tiro badan si aynu fursad ugu helno in muuqaaladeena ay dad badan gaaraan.